Inaad ku noolaato meel si adag loo ilaaliyo iyadoo cidna aysan ku ogeyn waxay u muuqan kartaa wax suurtagal ahayn oo kaliya tahay sheeko filin. Laakiin sheekadeeni maanta waa mid dhab ah, mid dhacday la yaabkeedana wadata. Waa sheekada gabar yar oo Koonfurta Kuuriya ka soo jeeda oo saboolnimada ku qasabtay inay raadsato nolol ka duwan tii qoyskeeda, balse raadinteedu ma aysan horseedin meel caadi ah. Waxay ku dambeysay maktabadda madaxtooyada dalkaasi, halkaas oo muddo 2 sano si qarsoodi ah ugu nooleed iyadoo aan qofna ogaan. Waa sheeko dhab ah oo la yaab leh, taasoo isku darsatay geesinimo, sabir, xariifnimo iyo dhiiranaan. Ku baraarug in mararka qaar dhacdooyinka ugu yaabka badan ay ku qarsoon yihiin meelaha ugu khatarta badan dunida. Waa idin salaam saaxiibayaal, magacaygu waa Xaliimo Daawud. Inta gudaha u galin warbixinteena maanta waxaan ka codsanayaa inaad subscribe iyo dhahdo channel-ka laagtanaad ii saarto. Channel-kan waxaad ka helaysaa xogaha sirdoon dambiyada qarsoon ee xogaha caalamka ah. Inoo bilaabo sheekadeena maanta. Waxaa jirtay gabar lagu magacaabi jiray Jill oo ka timid qoys sabool ah oo ku noolaa dalka Koonfurta Kuuriya. Waxay dhalatay xilliga dhibaatooyinka dhaqaale iyo nololeed ee ka jireen dalkaasi, waxayna ka soo jeeday qoys aan awoodin wax badan ay ku biiriyaan mustaqbalka gabadhooda. Jill waxa ahayd gabar yar oo cajiib ah, laakiin mar walba waxay dareemaysay inay hayso riyo aan la gaari karin. Nolosha gurigooda waxay ahayd mid adag. Hooyadeed iyo aabaheed waxay isku dayeen sidii uga baxsan lahaayeen saboolnimada, laakiin xaaladaas waxay ahayd mid joogto ah. Markii ay noqotay 18 sano jir, waxay go'aansatay inay ka baxsato guriga hooyadeed si ay u raadsato nolol cusub. Si kastaba ahaatee, waxay ku guuldareysatay inay shaqo hesho ama ay bilowdo nolol madax bannaan. Dhibaatooyinka ku hareeraysan ayaa ahayd kuwo aan la gaari karin, laakiin waxay isla markiiba ogaatay inaysan haysan meel kale ay ku noolaato. Maalin maalmaha ka mid ah waxay maqashay inay jirto maktabadda madaxtooyada oo ah meel weyn oo dadka u tagaan si ay uga faa'iideystaan xogta iyo aqoonta. Waxaa jirtay in maktabadda ay ahayd meel aad u weyn ee dad badan ay joogaan, laakiin aan la ogaan karin qofka meelaha qarsoon ku dhuumanaya. Waxay go'aansatay inay raadiso maktabadda madaxtooyada si halkaas ay ugu dhuumato iyadoo aan cidna u sheegin. Waxayna xoogga saartay sidii ay gudaha u gali lahayd iyadoo mar walba ka fikiraysa inaysan arkin qof ay taqaano. Markii ay gaartay maktabadda, Jill waxay soo gashay iyadoo aan la ogaan, waxayna raadsatay meel gees ah oo ay ku dhuumato. Maktabadda waxay leedahay qaybo badan oo la isticmaalo, ardayda iyo shaqaalaha dowladda ay isticmaalaan. Waxay ka faa'iideysatay in meelo badan oo gudaha ay yihiin kuwo aan la isticmaalin, si gaar ah qaybo ka mid ah oo aan la fiirin. Waxay bilowday inay si tartiib ah ugu dhexnaalaato. Mararka qaar waxay isticmaali jirtay qaybaha aan la gelin, waxayna ka faa'iideysan jirtay shaybaarka iyo agabka qarsoon ee laga helo. Intii ay ku dhex jirtay maktabadda, waxay ku raaxaysatay xorriyadda cusub ee heshay. Waxayna dareentay in markii ugu horeysay ee nafteeda u maamuli karto sida ay rabto. Si kastaba ahaatee, waxay la kulantay dhibaatooyin kale oo xagga badbaadada ah iyo helitaanka raashinka. Waxay bilowday inay isticmaasho xeelado si ay u hesho raashinka. Mararka qaar waxay si qarsoodi ah uga soo saari jirtay alaabta dadweynaha ee laga tago, ama waxay ku dhuuman jirtay qaybaha aan la isticmaalin si ay raashin uga raadsato. Si kastaba ahaatee, waxay ahayd mid adag. Haddana Jill waxa ay noqotay gabar aad u adkaysi badan oo ka baqan tijaabada cusub. Maktabadda madaxtooyada waxay ahayd meel weyn, waxaana jiray qaybo kale oo madax bannaan. Waxa ay bilowday inay si weyn uga fiirsato hab nololeedka dadka kale, waxayna bilowday inay hesho saaxiibo qarsoodi ah oo ka tirsan shaqaalaha. Maalin maalmaha ka mid ah, Jill ayaa ku fikiraysay sidii uga baxsan lahayd maktabadda, laakiin mar kasta waxaa horyaala su'aal ah haddii ay ugu dambeyn nafteeda badbaadin karto. Waxay muddo 2 sano ah ku nooleed maktabadda madaxtooyada iyadoo aan cidna u sheegin halka ay joogto. Waxaa la yaab ahayd inaysan jirin shaqaale ama qof kale oo ogaan in gabar ay ku jirto gudaha marka laga reebo dhowr qof. Si kastaba ahaatee, ma ahayn meel dad badan ay joogaan. Inkastoo ay ku nooleed si qarsoodi ah, haddana waxay ku badbaaday inaysan la kulmin dhibaatooyin. Markii ay muddo 2 sano ah ku nooleed maktabadda, ugu dambeyn waxay go'aansatay inay sheegto xaqiiqda. Maalin ayay go'aansatay inay dhibaatadani ka baxdo, aysan ku sii jirin. Markii dambe si dhab ah ay ugu sheegtay maamulka iyo shaqaalaha madaxtooyada. Weli ma cadda sida shaqaalaha madaxtooyada uga jawaabeen ama uga falceliyeen. Jill waxay ahayd gabar go'aan qaadasho leh oo nafteeda ku kalsoon, waxayna ku nooleed madaxtooyada si qarsoodi ah muddo 2 sano iyadoon cidna ogeyn. Nolosheeda cusub waxay noqotay mid ay nafteeda ku maareyso
iyo riyooyinka qariibka ah ee ka heshay iyo tijaabada ay rabtay in nolosheeda ay ku bedesho. Tani waa sheekada Jin, gabadhii ku nooleed madaxtooyada Koonfurta Kuuriya iyadoo ugu dambeyntii kasoo baxday nolol adag oo la yaab leh. Sheekadani waa mid muujinaysa awoodda bini'aadamka ee ku saabsan adkeysiga iyo doorka xorriyadda qofka. Waxa kale oo ay ka turjumaysaa dhibaatooyinka iyo xaaladaha adag ee nolosha, iyadoo ay tahay in la fahmo in nolosha ay leedahay waxyaabo aan la filayn.